halkani daawadayaal waa biyo kulule waa goobta dalxiiska ee ku taal duleedka magaalada Boosaaso waxay qiyaastii 15 kiiloomitir u jirtaa magaalada Boosaaso biyo kulule waxay caan ku tahay biyo dureera oo ka soo burqada ila ku yaala salka buuraha ku hareeraysan goobtan waana ila rabaaniya waxaana ilahan loo naqshadeeyay qaab ay si wanaagsan uga faa'iideysan karaan dalxiiska dadka u taga waxa goobta laga sameeyay goobo ay biyuhu isugu tagaan oo lagu dabaalan karo iyo godod ay ku hursan yihiin biyaha rabaaniga ee wata diirimaadka kuwaas oo qofka gala oo ka qaado diirimaad iyo dhiigga oo furfurma waana halka uu ka yimid magaca biyo kulule goobtan biyo kulule waa goob soo jireena waana meel waqti dheer ay ku soo hiranayeen dadka Soomaalida iyo sidoo kale ajaanibta ee xiiseynayay biyaha diirimaad kale waxaana goobtan dadka qaybtooda ay u qasdaan goob caafimaad ahaan gaar ahaan cudurrada lafa xanuunka sida rheumatismada iyo tufta dhiiga furfurtaankiisa caafimaadka dina dhiiga fariistay oo dhaqaajiyo rheumatismada waxa soo dhan bay waxay u tahay caafimaad inkasta oo goobta dalxiiska ee biyo kulule ay ka mid tahay hantida guud ee dalka haddana waxa gacanta ku haya muwaadiniin isku xilqaamay badbaadinta goobtan waxayna ku kala wadaan shaqada daryeelka iyo ilaalinta hantida qaran lacag aad u yar oo laga qaado dadka dalxiiska u taga xilliga aan booqanayay waxa biyo kulule dalxiis ku qaadanayay muwaadiniin ka kala yimid gobolada dalka iyo dalka dibadiisa magaalada Toronto ka yimid meeshan waxa way meel oo qurux badan oo dalxiis loo yimaado meeshan waxa la dhahaa biyo kulul oo natural spring water waaye oo meeshan aad iyo aad ku faraxsanahay meeshan harka arkaysan waa biyo caafimaad oo adduunka oo dhan looga yimaado gobolada Soomaaliya dalka dibadiisa meel walba waa meelaha qaaliga adduunka ku ah marka sidaa daraadeed Puntland waa dhulkeeni waa inaan maalgashanaa waa inaan u suubinaa marka waa inaan nimaanaa meeshan waxa way biyo kulule si loo arko biyo badan baleedahay alxamdulillah ku bashaala أنا ما هاوي سيانود الحساب ما أنت أن فسح عليه هاي ليش هنجونا ووجدان وحوي بيه كله سفر عن هلاقود دباشة dalkeen hadaynan amnigiisa iyo horumarkiisa inagu ay ka shaqeyn cid inoo ka shaqeynaysa lama arko dalxiiska dalkeen inaynu horumarino dalkeen inaynu ku raaxaysano dalkeen inaynu ku dalxiiso waxaan leenahay dal kale intaad baran lahayd dal kale intaad ku dalxiis lahayd dalkaaga ku dalxiis waxa xusid mudan in goobaha ay farsamaysanay biyuhu isugu yimaadaan ay dhidibada u taageen gumaystihii Talyaaniga ku dhawaad 90 sano ka hor waana mid muujinaysa macnaha iyo qiimaha dhabta ee biyahan leeyihiin meeshan waa meesha la galo oo biyaha kulul ay ku soo dhacaan oo loo dhisay Talyaaniga waa dhisay taariikhda sidaan ku maqalay Abdullahi Bardacad Puntland TV بدر قاسم magaalada Boosaaso